weli waxaad daawanaysaan warka RTN idinkaga imaanaya stuudiga koobaad ee Nairobi. maamulka gobolka Hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolkaasi ayaa soo dhaweeyay mashruuca biyo xireenka Hiiraan oo dhawaan saxiixay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyadoo mashruucaasina ay Soomaaliya ugu deeqay ama ugu deeqi doono dawladda Talyaaniga. Warbixin arrintan ku saabsan Xuseen Cabdi Jimcaale Diini ayaa nooga soo diray Beledweyne. kulankan oo ay goobjoog ka ahaayeen maamulka gobolka qaybihiisa kala duwan odayaal iyo waxgarad ku nool Beledweyne ayaa si wada jir ah u soo dhaweeyay mashruuca biyo xireenka gobolka Hiiraan kaas oo uu dhawaan saxiixay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyadoo mashruucaas ay ku deeqtay dawladda dalka Talyaaniga. qaybaha bulshada oo ay ugu horeeyaan odayaal iyo haween ayaa soo dhaweeyay mashruuca biyo xireenka Beledweyne. waxay la tahay mashruucan dhowr sano aan dhagahayna ku maqlaynin waxa ka geliya iyo wax kale taba cid kasta oo muslina iyo cidii soo dhiibtay ba waxaan leenahay jisakala waxaan wakiil uga nahay ummadda joogta gobolka Hiiraan oo masaakiinta oo jilicsan wax looga qabanayo inay u mahad celiyaan cid kasta oo masab kaas kula heed gacan aan ugu soo mahad celinaynaa aan soo dhaweynaynaa haddaan nahay bulshada gobolka Hiiraan qayb walba isugu jirto gaar ahaan nabadoonnada gobolka Hiiraan waxaan soo dhaweynaynaa mashruucan biyo xireenka ah ee ay dawladda Talyaaniga noogu deeqday runtii aad ayaan ugu faraxsanahay haddii nahay shacabka kuna saabsan biyo xireenka gobolka Hiiraan runtii waxa waaye arrin aan aad ugu baahnayn oo maxaan ku iraahdaa in dhawaalaba aan maqli jirnay biyo xireen gobolka Hiiraan oo maxaan ku iraahdaa dawladda Talyaaniga ugu deeqday ayaan maqli jirnay laakiin hadda waxaan hubnaa in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu saxiixay maayarka Beledweyne gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda ee gobolka Hiiraan iyo gudoomiyaha gobolka ayaa si wada jir ah uga hadlay ahmiyadda mashruucan u leeyahay shacabka gobolka Hiiraan. mashruucaas xaaje kasta waqtigeeda faranta waxa Ilaahay uu suurto galiyay maalmihii la soo dhaafay in uu ra'iisul wasaaraha wadanka Mr. Rooble uu si saxiixo kana gudoomiye dawladda Talyaaniga waa maasan tahay aan soo dhaweynaa mashruuca biyo xireenka gobolka Hiiraan ay noogu deeqdo dawladda Talyaaniga aan leenahay dawladda Talyaaniga aad u mahadsantihiin deeqda aad soo maartay noogu deeqdeen maadaama dawladda Talyaaniga ay noogu deeqday dawladda Soomaaliya ayadana waxaan ku codsanaynaa inay soo fududeydo sidii gobolkan uu ku soo gaari lahayd waxayna maartay dawladda ay ku deeqdo in badan la iska haysto wax macno ay soo kordhinaysa malaha waxaan codsanaynaa dinaha maamulka gobolka Hiiraan iyo shacabka iyo dhammaan iswato in deeqdaas si degdeg loo soo gaarsiiyo gobolka Hiiraan si mashruucyada hadda socday iyo maartay dadaalada hadda aan wadno biyo xireenada ay ugu qayb qaataan ra'iisul wasaaraha ama prime minister ka hadba sidii loo yaqaano ra'iisul wasaare ku-xigeenka wasiirka beeraha iyo waraabka oo saxiixay mashruucan agaasimaha guud ee wasaaradda waa dadkii ka qayb qaatay mashruucaasi inuu suuro galo waxaa saxiixay mashruuca sida ay nagu soo wargeliyeen wasiirka beeraha waxaa goobjoog ahaa ra'iisul wasaare xigeenka waxaa kaloo goobjoog ahaa agaasimaha guud furka ka qayb galay ra'iisul wasaaraha waxaa mashruuca kala saxiixday sidaan maqashiisnahay wasiirka beeraha iyo waraabka iyo safiirka Soomaaliya u fadhiya dawladda Talyaaniga waxaa kaloo u mahad celinaynaa safiirka Soomaaliya u fadhiya dawladda Talyaaniga iyo dawladda uu wakiilka ka yahayba ee Talyaaniga intaba waa u mahad celinaynaa waxaa kaloo u mahad celinaynaa dawlad goboleedka Hirshabeelle madaxda ugu sarreeyay ugu horeeyay madaxweynuhu oo waqti hore arintan ku howlanaa inay suuro gasho waxaan rabaa inaan warkayga ku soo gaabiyo cid kasta oo arintaas ka qayb qaadatay waana u mahad celinaynaa taariikhduna waa xusi doontaa Xuseen Cabdi Jimcaale RTN Beledweyne.